maxay fikradaha ganacsi kaaga fashilmaan in fikrad fiican maskaxdaada ay ka guuxayso ama ay ku soo dhacdo iyo inaad haysato lacag aad u aragto inay ku habboon tahay maalgelinta fikraddaas macnaheedu ma ahan in aad shirkad aas-aasi karto. sahamadii ugu dambeeyay ee la sameeyay ayaa waxa ay muujinayaan in ka badan 50% mashaariicda cusubi ay fashilmaan sanadaha ugu horeeyay ee aas-aaskooda, xitaa iyadoo oo dadka mashaariicdaasi wadaahi ay yihiin kuwo si aad uga baaraandegay qiiro badanna ay u qabaan bilowgeeda. qormadan oo ay faafisay shabakadda Al Jazeera ayaa waxa aan ku dul istaagaynaa 10 ka mid ah qaladaadka ugu waaweyn ee inta badan fashiliyay mashaariicda cusub. 1. 36% ka mid ah shirkadaha iyo mashaariicda cusub waxa guuldarrada ugu wacan dhaqaale badan oo ay geliyaan dhismaha iyo hirgelinta waxyaabo ayna cidna u baahnayn. 2. 18% mashaariicda cusub waxay u fashilmaan sababta maalgeliyaha ama hindisaha mashruuca oo inta aanu bilaabin ka hor aan hubin in maalka uu hayahay uu ku filan yahay mashruuca uu doonayo hirgelintiisa. 3. 13% shirkadaha kici waaya ama mashaariicda fashilma waxaa sabab u ah shaqaalaha ay qaataan oo aan u qalmin aqoon ahaan, waayo aragnimo iyo karti ahaanba heerka iyo nooca shaqo ee laga rabo inay qabtaan. 4. 12% mashaariicda cusub waxay ku guuldareystaan sababta cidda fikirka wada oo garan weyda yoolka ay tahay in xoogga la saaro iyo waxa ay tahay inaysan waqtiga iyo maalkaba aysan ku lumin. 5. 7.9% ka mid ah ganacsiyada iyo mashaariicda guuldareysta waxa ay sababsadaan iibka ama suuqgeynta wax soo saarkoodii oo ay ku guuldareysteen awgeed. 6. in la waayo qof shuraako ah ama sheer ah oo ku habboon shaqada ama ganacsiga ayaa sabab u ah 5.4% kicitaanka ganacsiyada iyo guuldarrada ku timaada mashaariicda. 7. 3.3% ka mid ah maalgeliyaasha iyo hal-abuurada ganacsi ama mashaariicda waxa ay waqti aan loo baahnayn dadaal iyo fikir geliyaan in ay helaan cid maalgelin dheeraada siisa halkii ay ahayd inay raadiyaan macmiil iyo cid wax ka iibsata wax soo saarkooda ama adeegooda. taasi waxa ay keentaa guuldarro iyo in ganacsigu uu kici waayo ama mashruucu fashilmo. 8. 2.1% ka mid ah mashaariicda iyo ganacsiyada cusub waxaa galaafta maaliyad badan oo ku baxda ama dhaqaale badan oo ku baxa qarashaad aan loo baahnayn. 9.1% mashaariicdu waxa ay ku guuldareysaan sababta qofka wada ama hal abuur kale oo ka baqay inuu cid kale caawimaad ama kaalmo weydiista awgeed. 10. waxaase ugu xiisaha badan waxa ay tahay in 7% mashaariicda guuldareystahay ay sabab u tahay baraha xiriirka bulshada ama social media oo aan muhiimad la siinin ama la iska dhiga tiro halkii ay ahayd in laga faa'iideysto suuqgeyntooda iyo in xogaha lagu faafiyo. haddii aad ka hesho muuqaalkan like dheh, sidoo kalena asxaabtaada kale u share garay ama copy linkiga noo taabo. mahadsanid.